halkani waa reedab khaatumo. waa degmo xuduudeed ka tirsan gobolka Daadmareed. magaalo madaxda gobolka ee Eedweyne ayay hilaadii 85 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigtaa, halka ay Hargeysana u jirto qiyaas dhan 180 kiiloomitir. maqaaxigeedka hoosteeda ah ayay magaaladu ka bilaabantay xilli qiyaas ahaan laga joogo 80 gu. nin lagu magacaabi jiray Ballibaax ayaa maqaaxidii u horeysay galoolka hoostiisa ka yagleelay, isagoo habeenkiina dushiisa u hooyan jiray sida ay tibaaxayaan odayaasha deegaanku. كلي وحنا وحن كويا وردوده odayaashii waaweyn ama ka wareystan ku soo gaaray magaalada sidii Xaaji Maxamed Xaaji Waawa oo kale waxaan xogtahay Khaatumo markii hore waxa degan in loo jeeyin Ballibaax wuxuu ka furan jiray meherad taariikhdaas waxa ahayd 38 ilaa 42 geed galooba meeshu ahayd beesha degto uu daaqeen baahida magaalada ma jirin. dhulka waxa joogay bah la yiraahdo Abdullah Libaaxa koo ka yahay dadka cuna ninkaas maalintii wuxuu shidi jiray meherada habeenkii wuxuu ful jiray geedka magaalo ma ahayna in xuduudku halka ka yaala Ingiriisku Talyaaniguna halkaas ka yaalo halkan baandadii taay waa taas waxa weeyaan waa 82 sano ninka Ballibaax ayaa horta koo ka ahaa cid meherad ka furta wuxuu ku baxay siyaada halkan la dhigay إن قبل حباب إن شاء الله تنوح ويا خاتم وحى ماشي خيدب خاتمه لو جب بحيه كل تميضنا كل غطي ماشي برواقي نغطي وحى لهاي خيدب حانة بيشا سوق بثي أودينا اللي سوق بري ولا دقي يضا برواقي يسلم كوها يو وحشوا عيش شيء الله محرسته يضا بيش دقن تيباني اللي رجعنا على قبله وبيش وقاعدين كسوق شيء ذا والشيخها وحروتي أيامي خيدب تفرسته waxaan doonayaa buur siyaar balaaran ayaan wadayn si siyaarto waa la siyaartay si wacan baa loo siyaarto geel iyo aribo waa la siiyay ka bacdi markaas uu tan waa reedab Khaatumo badkad ninka qodaha xiba ugu horeeyay xagga biyaha xagga guryaha xiba ugu horeeyay iyadoo halka taagan wali daaqeenkiya ayaa ninka la yiraahdo xaax oo reeodweynaha ayaa yimi Khaatumo birkada nimkay ugu dhaw agteeda aynu taaganahay ayuu ka aasaasay الله ونحرسته حاج وعوها أضيق مجالده تذكي أقوم من ماءها ويقول هدول بان كويس تمشي شلال جذبي نكان شدير كده بكده الصمين يوحنا سودي بتشري بوري ويقول واجي بريء يعني واجي وصلت كذي بقربة قاعد متشري إن كاسول السول قنشر وصده هلبه صدق بيش أنا هو لو كينشري إن كاسول قاعد شري وصلت سحر كده والله عجه وحو حمركا بركض واحد هاي الدراء وذا قصبة صاروا سريع عقايض تطبع عقايض بصرنا برنو صرناين waxa lagu markii furta laga qaaday gaari la duubay barkada albaabadan xadiidna way saarnaan oo shubaa dusha laga shiyo shubaheed anigu waan ku soo gaariyay caankeedii oo garantiina halka masaajidka dhinaciisa wuxuu ka furay muqaaxi wadaad isku leeyihiin oo la yiraahdo Maxamed Qardajeex ayaa meheradii ugu horeysay isagoo halka ka furay say magaalada horta ku dhaartay marka hore waa sida waxa ay noqotay taariikhdaas waa kotonkii la degay magaalooyinka ugu facaweyn leh ee ugu mudnaa SY Xisbillaahi waxay ka dhalatay waxa laga tagay calanka la milaaxo iyadoo waxay talabaad taariikhdaas ay lahayd daartii ugu horeysana wuxuu baa dhisay isla xaaxin baa hadana ka dhisay halka guri daara oo halka imkeedii ka muuqdo burbursan oo masaajidka ku xiga ayay daartii ugu horeysana ahayd saasa magaalada lagu digay gudoomiyihii ugu horeeyay marka magaalada gudoomiyaha ka noqday wuxuu ahaa nin loo jeedo Hadoodil in Cismaan Shariif oo nin karaamo lahaa oo sharaf leh oo goba ayuu ahaa waxaan taariikhda ku hayaa oo kale 64kii waxa halkan ka dhacay diyaarad warshaysay halkan geed baa ku yaalay galool ah oo halka dhuxushiisa ka muuqato geedka galoolka markii diyaaraddu soo wax ku riday magaalada ayaa lagu soo yaaco rag ku jiro 5 baa ku jiray 4 baa ku jiray
nin marya cadcad ayaa soo cararay ninkii geedkii buu soo galo bartii bay ku dhufatay madfac shantii nin waa dhinteen magaalada waa laga yaacay shantii xabaalo waxaa looga qoday ayga waxa la magaalada ku askar mayno 4 kii taariikhdaas ilaa 1942 iyo ilaa iyo maanta iyo ma ilaa iyo 2008 inta waxayd magaalada Tuulaha ilaa 2008 ilaa 2012 kiina waxay ahayd degmo degmadu waxay leedahay dhinaca waraabka ama biyaha maadaama nolosheedu biyo ay ku xidhan tahay 3 balliyo waaweyn saddexaasoo aad u facweyn halkan waxaa ku yaala xuduudka dhinaciisa magaalada dhinaceeda bari dhaam laga qoday ama balli laga qoday imaka ingiriiskii markii xuduudka la jeexayay waxaa ka yara shisheeya balli weyn oo imaka dhaamka magaalada la yidhaahdo oo isagana xilligii Soomaaliya la sameeyay oo la dhisay ilaa guriyihiisa ilaa systemkiisa oo aanay runtii jirin deegaano kale ku yirihiin area-da ama xuduudka ama Somaliland gudaheedaba ay ka dhisay uu ka sameeyay hay mid noocaas oo kale 3 balli oo kaliya qaabka uu dhisay waa taariikhda ilaa xilligaas iyo balligan weyn ee dhinaca galbeed ee ku magac dheer balli suule عدة كاف لحدي وحكوسو برتي ولدي لورنشري لمن كيف فنك هاي لورنشري ولا هرجيسا يسوق زي ما كنت منه ولده وبري كوبيا تومبا كم ذا أنت وحكي برتي هالكاس هالكاس هدي عن تاريخ خاتمة هالكاس دي غير نقضه وحي خاتمة عام كنت هاي أو أنا يقع ضينا إياه وماشي كسب بحين فنانين توقف بدن أما أبوانين هدي أن تري علي سوق لك خاتمة يقول بسوقي له هدي أن تري إسماعيل عبد بس ويا له في كيس مجادو يلا هدي أن تريو إسماعيل عقف والله وضيقانه وأبوانها وحوري خاتمة أوريجينال أبوها هدي أن تريو محمد أحمد كلع والله يقانه فنانين توويني ده هاي وابري خير خاتمة هقوليه هدي بركضوا كيا له نيكي لورين شري صلب عمر وهيستن تلاقى روب كي هل فيها بخاتمه لو برهيه وين كلفري الفي سقو هل سيكر يمر كي دنبه خير خاتمه صلب عمرنا وحويه وحلا يلو صلب وروحها مركي هوري horta askari tabeedna waxa la geeyay meesha la yiraahdo drugs markii la geeyay taabeedu way isku guur jiray bariga hore feermiyuna uu guur joog daqsatooha tabeed isagoo jooga drugs baa roob kale khaatimo ku soo simay roob tabeedna way camarantay taabeedu way soo guureen mulaaxa uu soo guurtay drugs uu soo guuray goriixu baa soo guurtay ilaa iyo xasaar uu soo guuray dabeedna inantii ay sheegeen markaa inaan bay isticmaalay baa uu sheegaysan jiray inantii dabeed khaatimo timi dabeedna war hiblaayo meeday buu yiri inantii meeday meeradan haysto waxa la yiri khaatimo guurtay oo maxaa ka daay roob bartaasuu ka loo soo dalbay wuxuu roob kale fiyeed khaatimo lagu marheeyaan wayna kala faray helay fayda waxaan u joogay anigu imka farsana maraya 4 sano wixii nagu horreeyay intaan ku sheegay elbostiga iyo dawladda hoose anaga inta noo qabsoontay MCH waan u meestranay darsidii diiniga laba waan dhisanay
dhaamamkii bar waan qodanay barna iminkaan tacabkoodii ku jiraa way noo korodhay deerarkan iyo guryahan dadweynuhu wadooyin waanu la baxnay janyalaaye oo burco ah waddo burco ah mid kaloo maxamed faarax oo magaalada yoromika la sameeyey tan gudi baanu kala barka ka hadnay xuduudkii oonu soo dunay waddadii raacaysay oonu golandhaalo gelin oo iyadana samaynay caafimaad ahaanna wuu noo dhamaystiray amsajkii ma garatay baraaga waanu samaynay danguuda wax dadgaaru kala leeyihin iyo wax ummadda ka dhexeeyaba afarta qodoba iminka baahideeda noogu daranay kow degmada iskuulka intaa jiray ilaa ingiriis dugsigii dhexe ma hayno afartii galaasa laba degmo weyn baanu qof kasta oo dembi ka gala halkan maxkamad degmo oo oodweynaha ayma la doonana degmana soo maaha in maxkamaddii degmada aan helno oo halkii kasta loo marayaba aan soo dhaweyno maxkamadda degmada waayo dhibkaa yaraanaya haddii sharciga la soo dhaweeyo wuu yaraanaya dhibku iyo horumar la-aantuba waa laba sifooyinkii oo noogu ajisman garaysan bisha 12aad ee sanadkan uu ka dhiman yahay waa baahi saldhigga oo waa maqsin buu ahaa in leeg baan ku daro isku siidaysa u baahan intaa in leeg iyo deer oo ah goobtii nabadgelyada baahida noogu weyni maanta ee la taaban karaa way jiraan baahiya yaryari baahida degmada ugu ballaadhani waa afartaa